kalluunkii hadba sidaad u taqaanaan waa la dhaqayaa waaba la dhaqayba may hadda waan dhaqana marka intaan in leegan dubaya ama sheelaya in halaha kale waan xireysanaya markaan dhaqan nadiifiyo waan xireynaya hadhowto marba jab baan la soo baxay laakiin hadda jab intaan leegan ka isticmaalayna maanta hadii ilaahay qadaro ma saan idin soo sheegay maanta qadadu waa kalluun iyo baradho laakiin maaha baradhadii aynu naqaanay waa baradhadii si kala laga dhigay ama si kala loo karinayo ama suugo si kala loo samaynayo kalluunkan lagu cunayo hadii ilaahay qadaro marka waa la socod wanaagsan hadda malaygi baan soo dhaqanay ama kalluun marka sanad dhinacan wajah sidii ay u shiilmo si wacan u dubo harka marka waa iskugu soo noqonaynaa baradhadii iyo xawaashigiisa baradhadii cunto lagu cunayo waa diyaaray waynagii soo diyaarinay haddana intaan iyagoo fresh maanta ma hay intaad haysato gurigaaga taalaad ku daraysaa sababtu tahay waxoo ma qaadanayo waa bes waxa yar bad ku daadinaysaa in yar cusba wuxuu ka qaadanay hawl dhankaaga bixi maysaba waa bila hawl waxaan ku wari degdeg ma sha Allah tabarakallah marka waxaad sameeynaysan insha Allah bismillah kariim alaabtaan ku dardaraya waan ku isku soo noqonaynaa waa inaan horta waxyaabahan ku dardar laakiin waa inuu wax badan ku shiilma si aad maxay haytayeen oo hoosta ka shiilma horta markiiba degdeg hadaad u rogto subagu ka dhargaya marka waa isku soo noqonaynaa soo karkariyay waxaan idin tusin maadaama wax badan baradhadu karkarayso waa soo karkariyay waatana marka sooskana intana laga sameeynaya kuwa caanana waad ka sameeysan kartaa waa kareem kuwani laakiin caanana waad ka sameeyn kartaa iyo inta soos yar baan ka sameeynaya baradhadana waatana iyadana waan idin tusaya sida loo sameynayo kadib hadhowiyad iyo kalluunkunba ama malayga isu tagaya insha Allah iyo sooskan yarna korka laga shubaya marka baradhada ayaan hadda iyadana iyo sooskana waa isaga bes waa basasha inta sunba la isku shiilaya yaanyadaas baradhadana waan idin tusaa insha Allah iyo kalluunka waa markaan dhaqayadii tusay bilowgii haddana waa soo sameynaynaa markaas la idin tusaya daawasho wanaagsan waxaan sameynayaa hadda waan anigaan haystaa marka caanaha iyo baradhadana isdhexgelinaya hadii la ka dhigo saqadeeda aad ay u badan tahay waxaad isticmaali kartaa waxaad ku garaacdo waxaad isticmaali kartaa maxaa la yiraahdaa koob ama bakeeri laakiin anigu hadda tan isticmaalaya marka insha Allah soo noqonayna marka ii jilcido waa sax soo saar baa soo noqonayna hadda isticmaalaya oo mashiinka baan aniga isticmaalaya si degdeg ma daawaan u qabo laakiin koob baad isticmaali kartaa qaadda isticmaali kartaa waa burin kartaa laakiin ani si degdeg aan u rabaa marka waxa weeye inay isu kaydaxgasho oo markiiba ii shiidanto baan rabaa sidaas aan mashiinka ugu isticmaalaya marka laakiin idinku waxaad samayn kartaa waxaad ku garaaci kartaan koob ama bakeeri waa isku in la isdhex gasho oo la tumo bay rabtaa wax kale uma baahna caanaad ku dari kartaa kareemkaanaad ku dari kartaa waa isku mid caana iyo kareemkan uu ka yar culus yahay marka waa isku soo noqonaynaa waan soo hagaajinaa saxanka soo saara waa soo dhamaatay waxan waa sooski weeye sooska waxaan saaraynaa malayga korkiisa ama
kalluunka korkiisa saasaa loo saaraya. marka waa la diyaariyey. waxana waa baradhadii, hoos waa baradhadii, korna waa kalluunkii sooskii loo sameeyey. saasaa kor looga saaraya sooska kor. marka waa la isku cunayaa. waa kalluunkeeni iyo qudaartii iyo dhaqankii wax yar la bedelay ya. marka si wanaagsan buu isku soo baxayaa macaana. aad iyo aad baan idiin salaamaya. maalin wanaagsan, galab wanaagsan.